suurad xumeen baa ugu wadaa oo suurad xumeen tan ka xun ma jirto jaacada Soomaalida dhan waa ku naceeb qofkii calankiisa jecel uu ku nacaya qofkii wadananimo ku jirtana uu ku nacaya ma fahanti sababtoo calankeena shaydaan ku sheegto qof walba ra'yigiisa uu leeyahay ra'yigaaga wadataa oo xanuunsan ra'yigaaga xanuunsan meesha ku geeya arkeena hal mar soo boodo camal oday duq adoo caanimo afarnaaga dhinaca isku soo dhigtay calna wax ka sheegtay afarnin in disha lagu sheegay in wadanka laga soo tarxiila lagu sheeg problemka ku haysto aba ciida ka badan walaalo ina meeshan soo gasho social media ma ku fiicneen ma fahmusa marka ceebahadan hal baasa loo soo fageeyaa wax hadda yani nadiifneen iskama dhigi kartid ma fahmusa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada youtube channelkayga magacayga hani waa youtube channelka daawanaysan waa hani official fadlan daanugu cusub tahay subscribe like comment share hadda nala joogtayna aad iyo aad u maadsanta hadda nagu soo biirisid nagu soo dhaweynayna dabcan gacmo furan qalbi furan niyad saafi ee kusoo dhawaada minkiina waaye gabadhiini waaye soo dhawaada asxaabay please videoyaasha ila gareey isha gareeyada caad iska dhig faanteen man walba waan idhahaa maniga daalo dad qaar waxa ay soo qoraan mar kasta anaga ku leegareena ku share gareena war dadka ila gareey share gareey lama hadlaayo dadka kale oo wali aan sameeynin baan ku dhiganaa ma fahanti inay ii sameeyaan baarba igu qaata idan calaalka iska dhageysta waxa dhaysiin yani naagtan ida calaal badana very dog soo fariisanaya bari subscribe like comment shmaan ka nabsana laakiin aan ma ka nabsan kariyo ana cusub subscribe like inaan ku digriyo waa sababtoo dadkii ma sha Allah half million keest 500 kun ma aragtay baadhooyo bari sadaan ugu xusubtaan le garay hay madaalooyaan waa may 3 sano 4 sano dhex fadhiyaan meesh saas ay tahay madaalooyaan ana si ku daalaa si dibsaysiina xaaladda ogtiin xaaladda YouTube inay tuqsilata waa iska ogtiin ma fahanti ugu qaata kooda asxaabi marka video ay wada maanta video ay wada waxa waaye ninka maalmahan social media saas u qabsada ana waa qabsan lahay ina hadda sheekada uu ninkan wato in aan keensaday eed no saameysha dhan u qabsado magaalada adduunka aan qabsado Soomaaliya dhan social media asaa qabsada fahanti ninka liira Sufyaan afarna horta dhinaca iska soo dhigo koowaay number 2 waxa waa calankeedu wax ka sheeg number 3 hadda wareysi laga qaaday qosol ugu dirisaas ku soo qaatay wareysiyada hore u bixiyay way arkay laakiin ma soo qaadanin afartii sano waa arkay laakiin ma soo qaadanin arinta calankana ila calankeena shaydaan lagu tilmaamo oo la dhaho yani shantiisa xidig wuxuu u taagan tahay shan maxay diimood oo yani oo gaale إن الله وحس قالد واي قف كهرت يا هرت وح مهم كديجو وح والبو دين تحت يا مهم كديجو نيده وح نيد لا ما أقبله عمل كاجا نيد هدو كسوق أي ولا جا أقبله هدول نيد كسوق قف كأقبله اسمه فاهم موسى مرك أنا نيد ده كمسوق إن شان يعني شيطان يعني على كاس كجرته كمسوق هدي حتى مع الله شان تسكتر جمعة شان توقال نيد ده كمجرته نيد ده حكجرو calankii anaga yani tilmaamtano ahay yani waa wax la sameeyay oo bilaadan sameeyay qof fiican aan soo hindisay oo yani wax ugu quruxda badan ba kalarkiis ka dhignay xidagta shanta xidagna anaga yani saa ula jeedno ba u fasiranayna shanta xidig marka shanta calaamadna waxay noo matalaysaa shanta Soomaaliyeed fahmusa marka anaga niyadeena wixii ku jiro ayuu noo yahay fahmusa qofkii shaydaan u arko sida asagoo kale ديو استعمالها اسكرافة اسكلت تجيس ورقة كلها صوت جاهز فهموسا تاس أنا ما يعني مديدني هذا أنا وكسر دريو شيء كذا علن بس وربع إن لا ورستو عبد كافي ما لامس عبد حفيد يأسق بس دجالة ما نحس كجالنا كذا ترى تنك أو حلوسو إيدي إنه أفر وريو وصور لخي ما فهمت تاكين والله نوح كستو تاكينا ما قاعد بكفهمه هدي أديك أفريس أسوق شغل تاكينا وكذا تاكو تشك ما فهمت تاكدوا حاول نفط الزف يا أفر وريه إنه يكون سجال بقول سجاشن الرخض وسود هون أفريقيا شقين جرين بالصوت شيء يعني إلا يقول عدلنا وما هاي أفر سنة إنه حبس كل جري على صوت شيء مرك أنا أهان نك محاكى أمسنة نك أنا محاكى أمسنة إنه دمية يعني إنه مسكحة لا يعني مس حبسي وصاق اللي باتو وكوكين مس ودن كله يسمى مسافرية اللي باتو كنت دبعا عن بقى فاوت ورسو أديك سيد وحالي هي يعني سومالي وريري يعني لنا كانوا أجيدي الله ما فهمت مركا كان أنا لا بيمت هاي إن يعني قف ويعني لسوء شقاليسي وسومالي ده لا صادر إنه هاي قف مسكحتك حنوصل
فاهموسا sababtoo qofku markuu caafimaad qabo uu fiyo yahay hadda fiiri caannimada meesha ka soo gasho fiiri horta nin cilmi bartay oo aqoon leh suu sheegay nin aqoon lahaa intaasoo kunba hal maad ku barto uu sheegay fahmusa haba ku barto maxmo okay nin intaasoo cilmi leh nin intaasoo faa'iido ku jirto nin diinta xaggeeda ku fiican yani naadihiisa social media mikeen lahaa sida wax cusub ila afar naag ma cusub in la guursado naagka kama seerto meesha iska dhigam siiyay kama seerin taas no problem fahmt laakiin nin yani nin wax cusub sameeyay camal ni yani wax cusub inuu sameeyay camal oo afar naagood intuu dhinaca iska soo dhigo uu yirsid ciyaalka camal meelaha lagu cayaariyo soo friistoon ay duubayaan sabab uu duubay yani wuu ku soo caan baxay fahmusa yani wuxuu rabay hawada inuu magaalada adduunka u qabsado waa ogtihiin dadkan badana social media ku jiro nus waa dumar beeba sheegay dumarkana waa ogtihiin way xamaasad badan yihiin wayna fidna badan yihiin saa ayaga u wareejiyo raggaba ayaga ka daran fahmusa marka 90% haddii dhinaca dumarka sheeko dumar in la keeno dumarka waxaaba kaalin libaax ka qaadanaya meel kasta ku sheer gareynaya meel kasta dhigayaan hina waa tara wax ii sheer gareeyaan niglaada naagtaas ninkaas iyo afartiisa naag meel kasta ugu dhibeen TikTok hadaan galo eega taagan Facebook anga eega taagan WhatsApp ka lagu soo dira Snapchat ka lagu soo dira war wixii wareejiyay meelahaas uu tutuur ana calankii macaano yaa waa may sorry marka aniga run ahaantii maxaan dhihi lahay ninkan waa nin jugjug haddana muxuu keenay wara calanka aniga waxa iga wareyso waxyaabaha kale iga wareysan adiga waa isla fiirineynaa soo dhawaada asxaabi wax yar isla daawaneynaa hadalka zaid ugu badiyo samahan wax yar isla daawaneynaa soo dhawaada marka kusoo jeeda dul martay eedamahaas waxaa ka mid ahaa inaad adigu Sufyaan Sheekh Axmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan xasan inaad gacanta Ahmed Cali Salaad Xange inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheekh Cali Maxamed Nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabdulqaadir Cali Iidle waxaa wariyayaal afar ka mid ah isku meel aad ku dishay radio Muqdisho waxaan kaloon malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu cadeynteeda soo daba dhigo arintaasi aniga dhinaciga sidaan xalaba u yiri wax ka jira mala isku dayin macnaha ina disrespect igu samaysidoo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tiraahdo nimankan saalin ha ku celcelinin I don't want that because ina ku celcelisid macnaheedu wax weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana ka yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno let us waa weydiin su'aal waa kaaga jawaab su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine ninkii Sufyaan ahay oo iyaga calanka dhacbay baa haysta calanka loo daaran fahanteen saa indhaha loo mirig ka siinaya muu salaam u saara calanka maxaa ka khaldan dada u soo dhabar jabay nin ficiisa baa u soo dhiigay nin ficiisa god ugu jira nin ficiisa baa u go'go'ay nin ficiisa u baahooday maxaa ka khaldan ninkan niyo ama Soomaali ahayn oo nagu soo khaldama ninkan Soomaali ma aha iga daa ciyaarta imaha awdidu yiri aniga hayri maanu dhahay aniga qof ma dilin ma dhihina waxaas ma jiraan u dhahay kaliya wuxuu dhaca cadayso waxaas adaa lagu dhahay ma cadeynay laakiin aniga waxba kama jiraan inay yihiin warkaas baan ku hayaa hadda cadeysiin la imaado taagan ninkan waa nin inta adag barnaamijkan aan isku ogeyn ya san calanka aniga ma aqoonsan dadku u dhintay ma aqoonsan warka Soomaalinimada ma nooga saartiin Soomaali maba Soomaali ma nooga saartiin anaga cadeynta afkeena noo calankeena noo wax kale ma haysana may bluega baa warqad u egyahay maradeena oo cirka bluega sharafta badan buu egyahay maxaa sheedaan xagees ka soo gala waraa ninka indha adka ilgeel muu noqdo suurad xumeen baa ugu wadaa oo suurad xumeen tan ka xun ma jirto jaa adi Soomaalida dhan waa ku naceeb qofkii calankiisa jecel uu ku nacaya qofkii wadananimo ku jirtana uu ku nacaya ma fahanti sababtoo calankeena sheedaan ku sheegto qof walba ra'yigiisa uu leeyahay ra'yigaaga wadataa oo xanuunsan ra'yigaaga xanuunsan meesha ku geeya arkeena hal mar soo boodo camal oday duq adoo caanimo afar naaga dhinaca isku soo dhigtay calna wax ka sheegtay afar nin in dishaa lagu sheegay in wadanka laga soo tarxiilaa lagu sheeg problemka ku haysto aaga ciida ka badan walaalo ina meeshan soo gasho social media ma ku fiicneen ma fahmusa marka ceebahadan hal baasaa loo soo fogaya wax hadda yani nadiifnayna iskama dhigi kartid ma fahmusa kaleeta 4 sano xirnaayeen 4 sano ma qof wanaagsan la xiraan qof mutacalima ma la xiraan lama xiro
waa khaldantay ma fahamtay marka qof soo yani adduun soo qarbaday ataa ma fahmaysaa marka niyo dadkeena iyo ummadeena waswaasa naga gelin Soomaalida horta dad waxaa jiro horta isbedelo oo inaa qaar badashida dhici karto laakiin inta madaxa adagoo calankooda in loo dhintay loo dagaalamay loo jihaaday loo dhiig bixiyay way ogyihiin ma fahamtay qof kasta uu ogyahay calankeena dadka ugu duwanaa calankeena waa calanka adduunka ugu sharafta badan calan sheedaana ma noqon karo marka ninkan xanuunsan warkiisa inta iska dhaaftiin inaa ignore gareysiina wax ka fiican ba male noocaan soo noqduu rabo dadka madax ka galo waana ka geliy suu rabo uu sameeyey aniga marka waaye waxaan caan ku noqdo ma ii sheegtiin calanka ma soo faragastaan فيديو قاعد وسيل هذا شري 10 دقيقة وسيل مرايا لك ولا شتري يعني بملهنا إن شاء الله أصحابته فيديو قاعد دوني سو قارو لقريش قريكم ما تكبحية هديات نوع ستاني سبسكرايب نوصار ملهنا كنت طورة نك أبو سفيان اللي لفتكي سوقي أبو سفيان راعي عرفت ليش كده أنا فريسي الوير هنيا فرين كصدرت وشيء مركز أصحابي ساني تجا فيديو إلى قريش قريكم ما تكبحية ملهنا كنت طورة قبل كان فرصي أي لسعتيت كمان تين رأي جاي هدي وصحيح عندو قضية أنا diyaar way ma fahamtay soo marka waxaan iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo bye bye